بسم الله الرحمن الرحيم دمان وحان سلامة أمد الصوماليات خاصة انت سبورت اسيسي oo 30 kun gaarayso aad baad u mahadsantihiin youtube-kayga aad dhagaysateen hadaladii aad iga maqasheen waxa waaye wali dhibaatadii inay sii xumaato ma ogiye ma soo fiicnaan aniga Sacdiye Cumar Cabdullaah guri waxa iga maqan qiimo aad u weyn leh more than ka badan qiimihiisana ilaa 5 milyan oo dollar Soomaali waxaan ka codsanaa aniga gurigaas aabahay baa isiiyay aabahay wuxuu ahaa nin taariikh iyo sharaf iyo maamuus ku leh Soomaaliya ninkii maalkiisana ku bixiyay Israel ninkii dhiigiisii iyo xoogiisii ku bixiyay dawladnimada Soomaaliyeed oo u dagaalamay ayuu ahaa waxaan ka qaaday in la yiraahdo Soomaali ma tihid reer baraa waa tahay in dumarnimo lagu dhaco in la iyaso in la ixoogo oo gacan la iga jabsho oo nin la igu soo dalbado oo la yiraahdo dil garaac ka bixi wadanka in xira horaan dhibaatadaas uga soo hadlay kamana mudni حسن شيخ محمود oo Soomaaliyeed aad doorateen inaad ku dalbatiin gabdhihiinni Soomaaliyeed oo aniga aan ka mid ahay haddaba caawa halkan waxaan u imid ninka aniga ixmeeyay oo intaas oo dhibaato ii geystay oo gurigaygi intaan dad u diray dadna kala dhex galay dad isku tagay oo 2,000 ah oo tale iyo tusaale la yiraahdo intay u tageen oo ay la hadleen oo la xiriireen علي عمر نيل يراهدو سكرتاريا بارتيكولار او خاصة اساغا او xoghayn ay ku dhaheen gabadha xoolaheeda soo siiyo youtube-ka ka hadashay ina baanafuus waa la wada yaqaana aabaheed Cumar baanafuus nin muwaadin u ahaa ugu soo jawaabay guriga reer baanafuus oo dhanba isku dacweysanay guriga ciidama ii degan guriga bixin maayo ana Xasan Sheekh ima dhici karo dadoo dhacayna oo aniga aan ka mid ahayna dacwad kale u qabaan Soomaaliyeed waxa su'aal iga ah ninka dadka dhacay oo boobay oo dhibkaas geysanayo oo sharcigi iyo qawaaniintii wadanka dastuurka loo dajiyay qodobka labaad qaybtiisa saddexaad ay leedahay bini'aadanka jinsiyad laguma dhici karo maalkiisa lama dhici karo maxaan ku sheegaa qabiil laguma takoori karo lama xumeyn karo war xagee iga martay milkiyadaydu qaatay maalkeygu qaatay dhibaato ii geystay xoolahaygu ku dhagan yahay oo uu leeyahay bixin maayo oo intaasoo qof oo Soomaali ah ay nuuga kala dhex jirto oo ay tiri war xoolaha gabadhaan si waraaba maahay wuxuu yiri xoolaha naaga hadaan ka aqaano xoolaha kale waan u celin lahaa xoolahooda hadda Xasan Sheekhow ha u fadhin aniga Sacdiye ah inaad xoolahayga qaadid waxaan ku geynaa maxkamadda adduunka Soomaali haday wax iiga qaban maxkamadda adduunka ku geynaa oo iska la istaageynaa wax kasta ay ku qaadatay waa koow sharcigi Soomaaliya qodobkii qaadiyaashi ayaa ii xukumo warqadooda haystaa inaan leeyahay cadeynay waxaan haystaa damanyaalihii guriga waxaan haystaa dardaarankii aabahay oo walaalahay ay og yihiin oo uu yiri guriga Sacdiyaa leh qof la sheer gareynay oo bini'aadan ha ma jiro nin walbana aabayna hal guri ma lahayn aabahay ugu yaraan 10 guri ku lahaa xamar adna waad ogtaa ilaahayna wuu ogyahay shacabka Soomaaliyeedna way ka warqabaan annakana waxaan nahay 5 wiil iyo 2 gabdhood haddaba aniga xoolahaygi naag ahaan kuma dhacaysid midab ahaan iyo reer baraawa ahaan iguma dhacaysid war xoolahayga maad bixisid war dawladan aad marna sharciga u saaraysid marna aad maxaan ku sheegaa sharcigooda ku tumanaysid oo leedahay dariiqan u fadhiyaa ani maxkamadda waxay soo xukuntay waxba iga qaadi mayso way ka qaadi doorasho labaad rajo ka qabtaa inaad soo gashid oo timaadid oo aad maxaan ku sheegaa gadatid meeshan Soomaali waa loo simayaa maalkeyga dhici maysee gurigeygii maalkeyga si
وكو Soomaaliya ha ku soo noqon Soomaali kuma rabtay kuma barabto absolutely kuma rabto 4 sano iyo barbaad haysay dhibaatada aad geysatay nin Soomaali oo geystay ama madaxweyne taariikh galay oo geystay ma jiro madaxweyne la doortaa tahay dimuqraasiya lagu doortaa tahay federalism aad suubinaysay waxaad u bedeshay wixii oo dhan qabiil xoog bob dhac iyo qaasatan dadka aad target ka dhiganaysid target waxa waaye Soomaaliyeey anigu gurigeygaan rabaa kama haraayo absolutely kama haraayo madaxweynaha soo koraayo hadduu ilaahay raali ka noqdo waa inuu ka warqabaa gurigaas inaan leeyahay xoolahaygii sharcigeygii waxeygii aan wato uusan idhicin kana fiirsada madaxweynaha soo koraayo mid qabiiliyuu idinku noqon ka fiirsada madaxweynaha soo koraayo xaq bini'aadamka inuusan qaadan ka fiirsada madaxweynaha soo koraayo in Soomaali maatadeeda iyo ilmaha dariiqa maray 6 saacadeynimo Soomaaliya dhexdeeda uu gaar intuu u taabto u naxariisto xanaaneeyo waxaad kaloo ka fiirsataan dad milyan iyo siyaado ka badan ayaa Nairobi laga soo wadaa oo qaxooti ahaa oo ay Sawaaxiligii soo ceyriyeen ay ku soo ceyriyeen in Soomaaliya ay meel dejiso madaxweynaha soo koraayo waxaad weydiisaan su'aalihiisa ku jiro dadka nagu soo socdo masaakiinta ah ee dagaaladii ka carray ee waxeeda la dhacay mood iyo nool waxay lahaayeen xageed u haysaan balaan ma u haysaan guriga ma u dhisteen xoolaad u qorteen adduunka ilaahay Canada iyo America dadka markay ceyr noqdaan oo ay soo galaan lacag baa loo qoraa waa laga warqabaa sayna tuugu u noqon dawlad tuuga ahaan ka soo baxnay oo dadka dhacdo marka dawladda imaanayso waa inay fiirisaa iska hubisaa sheegtaa cadaysaa dadkii guryaha ka maqnaa oo aniga aan ugu horeeyay horta guryahooda inay u celinayso dhibaatadii loo geystay inay ka xal marinayso war kuwa soo socdo oo soo dhoofayo Kenya ka imaanaya meeshii dajin lahayd waxay cuni lahaayeen wixii la siin lahaa waa in la hubiyaa maxay tahay dawladnimada la isku dilaayo oo hadba madaxweyne uu leeyahay hal i doorto ana wax laga qabanayn war Soomaaliya xagga u soconaa aniga kama hadlaayo waxyaabo badan laakiin dib baa Soomaaliya yaalo dibka yaala nin xalin karo oo u qalmo oo cadeeyo oo yiraahdo iskoolaadan suubinaa agoontaan ilaalinaa Soomaaliyan caafimaad u furaa goboladan ceel ka dhisaa waa ka warqabaa nabadan aga xagaajinaa aan loo baahan yahay looma baahna madaxweyne iska soo koro madaxweyne aan aragnay oo faa'iido iyo qasaaro wuxuu lahaa aan soo aragnayna inuu ku soo noqdo aniga ra'yigayga ila maaha laakiin Soomaaliyay ka fiirsada waa koow mideeda kale meeshaan iska daba noqnoqodka maxay tahay war 5 sano ninkii wax ku dhameyn waay ama wadan banaanka ku soo dhigi waay ama waji iyo wanaagiisa iyo wuxuu galay iyo wuxuu gudan la arki waayo maxay tahay hal soo doorto mar labaad war yaa ilaahay yaqaan aaw ismadii la sheegay aaw boqoradii aaw waasiyadii aaw Soomaali ragoodii wax bartay soo maaha inay wadankaas dhibaatada iyo qurunka iyo xaasidnimada iyo xumaanta isla gaareen inta laga qafiifiyo Soomaali fiican la suubiyo wax walba loo provide gareeyo wax walba loo sahlo waa baahan yihiin way dhimanayaan AIDS isbitaaladeedii ayay wada qabaan hawadiya xun cirkiya xun qorsheen wasiir qorshe oo balaankaana wataa dhahaya male madaxweyne min qaatay ama qabiil aanba ka soo qaado qaatay maxaan ku sheegaa sindikaha ma qaadan karo xaq maaha Soomaali waa 9 qabiil 9 dad waa maxay dadka baabi'inay dadka baabi'inay waa maxay gobol laga xukumo waa maxay dhibka baraawo lagu heeyaa laga daayo marka dhibka lagu heeyaa laga daayo xamar dhibka maaraya laga daayo xamar iyo xamardayaan ahayn aan kala xishoono wax barashada hal dhiso gabdhihii wax la baro caafimaadka hal la adkeeyo dhibaatooyinka ay Soomaali qabaan in laga qaado qaxootiga la soo wada qaxayo dadkii ay badihii ku baabi'ayeen hal la joojiyo hal la qaybsado waa dhargeynaaye hal la qaybsado jaadka wadanka ordaayana hal la joojiyo iyo daraaga
tani waa aragnay mid kale oo calanka iyo ciida dhowro oo sharaf iyo maamuus leh oo hooyooyinkii Soomaaliyeed iyo hablihii Soomaaliyeed iyo daqowdii Soomaaliyeed u naxariisanay Allah noo keeno oo Soomaali wada dharjinay saantiisina ay noo tahay Saudi Allah keeno madax yaan lagu cararin dadkan madax ku cararaay bal has carifaan waxay yihiin ee personalitigooda iyo dhibka ay qabaan iyo sababta ay madaxweyne ugu ordayaan madaxweyne haday ku ordayaan waa inay is sheegaan waa inay dhahaan dhiigan joojinaynaa dhibkan joojinaynaa tuugadan joojinaynaa tuug ma aha kansaliid soo marsado wax dhaco kaasi gaaja wada jeednaa tuug ma aha nin mooryaanaho meel ku dhagan tuuga ugu xun waa tuuga markuu ku biirsado awoodii dawladnimo oo kugu maquuniyo sida Xasan Sheekhaani igu maquuninooyo gurigayga inuu qaato ilaahay la soo gargaaro faataxada li soo maro Soomaaliya warsan iyo weersan doorashada ka bacdi waxaan rajaynaynaa guul shalayna maskiin baan ahaa mootaan watay naagtayduna baasiin bay gadaysay maantana milyoneer aan ahay Xasan Sheekhaan lagu arkaa hal laga qabto wadanka maalin wanaagsan waad mahadsantihiin Wow.